بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسن داوديال كسر هذا مدرسة وده هذا الكدوين سمدون وحكم مدرسان وهالكن شوجا ومرتكوا حبنا دولة الفدرال كصومالية حلال كل الدوان كسوق قاركودنا هذا هي سيدو كلا قبراء منك أمنية ومعمل قبلات ده خار كسو شقية أيام مرتكوا ضلني أقوياء هنو يقبها كلا برشة أيام سيدو كلا كن شوجا وسؤال ويدين دون موضوعنا وعنك أمانك waxaan ku bilaabayaa waa mikrofon ku soo dhaweynaya wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo sidoo kale ah gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya inta aanan Xuseen ku soo dhaweyn dadka martida ah hadii aan idin la wadaago waxa sidoo kale jooga Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyay hore ee madaxweynaha Soomaaliya ee dhanka ammaanka waxa sidoo kale jooga Cabdiraxmaan Yuusuf Abu Tujaana oo taliyaha nabad sugidda ee Puntland ahaa dawladda federaalka Soomaaliya wasiiradeeda ka mid noqday Puntland sidoo kale golada wasiirada ka mid noqday dhamaantii waan idinka mahad celinaa waqtigaadna siisan waxaan rabnaa inaan amniga Soomaaliya iyo arrimaha ciidamadii halkay wax marayaan inaan eegno mudane wasiir soo dhaw Xuseen Carab Ciise faahfaahin waxaad naga siisaa adiga ku jira guddiga difaaca ee baarlamaanka dawladda xubnaheedii ugu muhiimsanaana ka mid ah ammaanka dalka halka wax maray بسم الله الرحمن الرحيم أنا مركب هره وحن مهد علنيا معهدك سمدون ورنتي سوق مقابي البرنامج فقط بدل دور كمال السعودي سينا السعود دون سان قبو ما أنت موضوع على جهل لنا موضوع هرمرينا يا سومالي ودنا يدانين يسوع وان السلام يا مرتدى شرفت لسوق بشنا والسلام يا حالة أمنية دلكو كل بس أكتهين مرحلة كانت دونا يسوع مريء ومده burburki kadib siyaabo badan baa loola tacaalay oo mar loo toban sano ugu dambeysay kulay si dawlad maartay system dawli ah ayaa lagu dabaqo maartay amniga dalka qabashadiisa iyo inuu ku baaha dalka oo dhan dhibaatooyin badan oo iska jiraan laakiin waxaan qabaa mar boqol ayaa soo waday oo heer soo gaarsiinaysay oo maartay masuul dhiibay marka waxa weey muhiimadu maanta xageen joognaa iyo shalay xageen joognaa bari xageen soconaa wada ogtahay waxay ahayd markii hore muhiimada base-ka amnigu wuxuu ahaa la dagaalanka argagixisada in bulshada laga saaro iyo gobolada dalka oo dhan dabadeedna marka shacabkii dadka noloshooda loo dhiso taa waxaad moodaa waa lagu xukuumadii hore aad baa loogu guuleystay si fiican baa la isugu dhiibay laakiin xoogaa waxaad moodaa hakad inuu yimi imika oo xoogaa aad moodo in dib la soo noqday oo haddana magaalada la soo galay taas oo keentay markaa kalsooni darro badarka magaalada Muqdisho oo August 2011 laga saaray argagixisada maanta in laamiyadii wada xidhayeen marka amniga wuxuu noqday mid dhagax iyo albaab xid iyo waxa aan ku dhisnay xuuraan iyo ciidan qaran oo dhisan oo iska wada qadaxa war haya dalka oo dhan meel kasta taa maxaa keenay markaa waxa keenaya sanqabo waqti amni runtii marka hore waxa ka horeeya annagu waxaan ka dhignaa wax kasta base ku yahay amni iyo ciidamo qaran laakiin base waxa weeye marka hore reconciliation la culays fahmo siyaasadda gal lagu heshiiyo badaysan iyo adka wada qaybsi sax ah dabeedna markaas uu iman karaa is aamin ciidamo maaragtay dhisikar amniga hanan kara oo marka itijaah kaliya leh dhinaca jaawareer baa ka jira laakiin una soo noqon doonaa baan qabaa waa maasanta waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka siinaya Xuseen Macalin Maxamuud la taliyay hore dhanka amniga ee madaxweynaha Soomaaliya mudan soo dhaw amniga Soomaaliya waad ka wareysaa maanta meesha joogo horena waad uga wareysay xildhibaanku intuu sheegay maxaa ku dareysaa waa maasantahay sida uu mahad celiyay madasha macadka Samadoon barnaamijkan in la iska wareysto amniga oo ah waxa ugu muhiimsan oo baahida ugu badan ee dadka Soomaalida ay u qabaan dawladnimadeennii inay dib u istaagtana mar walba maaragtay yani caqabad ku ah xildhibaanka intuu sheegay waxaan ku darayaa inaan xogaa picture ka bixiyo sawir ka bixiyo xaalka iyo amniga su'aashaada ay ku aadanayd oo ah amniga sideeda waxa ka mas'uula dawladda amnigeeda oo amnigii ay ahayd inay ilaaliso ma ku filan tahay maya waa
ceeb may nagu tahay inaan ku filnaano xilligaan ku filnaan weyno dabcan laakiin markii naloo soo dirayay ciidamada afrikaanka ah amisom danta laga lahaa waxay ahayd inay dawladdu ku filnaato amnigeeda xilli markaas la qiyaasay 2017 ayaa ugu horeysay markay imaanayeen maanta 12 sano 2007 sorry maanta 12 sano ayaa ka soo wareegtay 12 sano kadib in aan wali ayna ilaalinayaan oo ay meelihii halbowlayaashii dalka oo madaxtooyadii iyo airportkii iyo dekadii iyo magaalooyinka gacanta dawladda waa ku jiraan la yiraahdo dhan inta ku taala koonfurta iyo gobolada dhexe badankood in ay ku tiirsan yihiin magaalo kasta in ay ciidamo amisom joogaan ayaa sawirka ay bixinaysaa waxay tahay in aanan ku filnaanin oo 12 sano oo fursadna la siiyay in aanan wali ka faa'iideysanin oo aan dul saarnahay intii aan noqon lahayn dad isku filan waa mahadsan waa idin soo laaban doonaa mawduucyo muhiim ah ka hadasheen waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Yuusuf Tujaana madaxii hore nabad sugidda Puntland golaha wasiirada Soomaaliya iyo sidoo kale golaha wasiirada Puntland qayb ka soo dhawaad Cabdiraxmaan amniga Soomaaliya halkoo maraya aragtidaada ku aad bismillaahir rahmaanir rahiim waxa salaamaya xildhibaanka wasiirka hore gaashaandhigga isla markaana ra'iisul wasaare ku xigeen saaxiibkay Xuseen Macallin oo runtii laf dhabar u ahaa hadda sukuurad markii la yiraahdo amni la yiraahdo runtii fildigiisana ahaa soona bartay igana khubaraysan runtii labada dhinba waxaan kaloo u mahadcelinayaa macadka Samadoon Dr. Aways iyo barnaamijkan runtii oo ay soo qaban qaabiyeen dadka soo xaadiray oo rag iyo dumar intaba waa in salaamaya salaan kadib amniga mar laga hadlayo kolba waa base waa nolol waa waxa kaliya oo Soomaalidu waxay dhihi jirtay gogol rag waa dumarka waxa looga reebay baa la isku xujeen jiray gogol rag maxay tahay waa amni anu marka waxaan aaminsanahay dawladda hadda jirta dawladda ka horeeyay maraaxil buna amnigu soo maray anu waxaan xasuustaa aniyo hadda Xuseen Carab Ciise wasiirkii hore gaashaandhigga markii la magacaabay wadadan maynkaado madaxtooyada iyo isku xirta airportka dabka markii la marayo baabuurka 120 baa lagu wadi jiray Ali Caliyow iyo waxay ku jireen iskoolkan dhagaxto waxaan xasuustaa oo ra'iisul wasaaruhu nagu wargeliyay inaan soo qaadan shaati cad maxaa yeelay AK47 meel uu ka soo gaarayo shaati cad lama ogola in la soo qaato tuutaan gashanay laba nin baa dhufayska la isku qoray oo furinta runtii xukuumadii la baxday tayo iyo marxaladda ay ka soo hoyeysay amnigana waa la socotaan wax taariikhi weeye anu marka waxaan dhihi karaa ilaa iyo maanta amniga maraaxisha soo maray iyo maanta meeshuu taagan yahay inay tahay wax aad iyo aad u kala fog runtii waa xilligii la geli lahaa barisamaad ciidamada amisom iyo waxa way ciidamada walaalaheena oo noo soo gurmaday naga bixi lahaayeen national army la dhisi lahaa ciidamada qaranka la dhisi lahaa dalku yeelan lahaa nabad sugid xuraanta iyo intelligence very strong iyo intelligence marka waxaan dhihi lahaa insha Allah ta'ala gaabkaasna waa ka bixi doonaa laakiin hadda gaab ay muuqda way waa maasanta xildhibaan Xuseen Carab Ciise waxa tiri rajal Allah waxba socday laakiin hadda dib u gurasha timada xamar amnigeedii laga badan kari lahayo dhagxaan lagu aaminay tan iyo waagaana waa joogtaa dalka dawladdiina waad ku jirtaa iyadoo shabaab meesha ogeyd ay tageen oo la fogeeyay magaalada kalsooni amni oo inta dhaanta ka jirta hadda in dib u gurasho timaado madaxtooyadii iyo nawaaxigeedii kalsooni lagu qabilayaa maxaa keenay runtii waxaan isleeyahay waxa keenay meesha marba group ay imanayay fikirka siyaasiga ee jira ayaa keenay iyo barnaamijka lagu socdo oo ah mid laga faan lahayn fikir dheer la lahayn fikir gaaban oo sidee baa lagu joogaa cid kastoo naga horta marka dagaalkii iyo awoodihii lagu la dagaalami lahaa iyo sida dhaban nabadgud ha noqoto ama military ha noqoto ama ha noqoto yani ciidamada qalabka sidoo dhan in markaa ku soo jeesadeen dadkii ay islahayn way fikir duwan yihiin taasuna markaa xoogaa dadka ay yara gelinaysa khalkhal waad ogtahay hadda systemka loo sugayo amniga gobolka Banaadir
saameyn dhaqaalu leeyahay hatta iska daasi kale dadkii baa isu kala socon kari la amnina haddaanad dhaqaalaha dhisin oo qofku wuxuu ilaaliya aana jirin amni ma iman karo waxaa la yidhaha economic development kobcinta dhaqaalaha ayaa base u ah amnigu inuu yimaado tiina hadda waa laga hortagay waad og tahay marka mukarama ugu ganacsi badnayd waa xidhan tahay boqolkiiba 70 reeraha waxaa masruufa islaamo laamiga fadhiista oo reerahoodii cunto u geeyay waa istaagtay marka amni sidee buu ku sugmayaa xuraan sidee lagu helayaa anigu waxaan isleeyahay markaa in itijaaha laga jeediyo xukuumaddu ay ka jeediso la dagaalanka dadkeeda oo ay ku jeediso la dagaalanka al-shabaab iyo barnaamijkii hore la soo celiyo ee ahaa in ciidamada lagu mideeyo inay la dagaalamaan for example waxaa imanaya marba xukuumad ka soo timaada waxay bilaabaysaa dib uga soo bilaabaysaa zero programmadii la soo sameeyey hore looma sii wadayo maxaa marka la bilaabaya markaas tira koob dib u dhisid isku mid wixiina waa wixii la soo waday shalay socday weeye in hore loo wado ay dhamaatay ahayd sida uu sheegay xuseen laakiin maxaa la sameynayaa programkii hore la burburinayaa ee ciidamada lagu dhisayay mid cusub baa la dhisayaa ciidan cusub baa la sameynaya marka waa project ayay u eg tahay rather than maaragtay inay noqoto mid loogu talagalay laamiga imika kaba soo qaad wadadan lego marta ilaa ay beerdhabe isku xidha intaasoo marba la qabtay haddana laga soo noqdo marka sababaha keena maxay tahay waa la ogyahay faa'iidada leedahay haddii la furi lahaa dhaqaalaha u leedahay isku xidhka Soomaaliya aragti waxaa jirta oo dadku qaar ay qabaan oo ah inaanay dawladdu waxba ka qaldaneen oo dadaalkii shala socday socyo laakiin shabaab intii ka bateen dhinaca dhaqaale iyo dhinaca ciidan marka la yiraahdo dhinaca waliba sirdoon ma qabta aragtida waa su'aasha la isweydiin waxa weeye maxay ku badan karaan dad aad la dagaalamayso ka adkaatay sidee ku bateen waa habacsanaan dhinacina ka jirta markaas maaha ana u malayn maayo intii ka bateen waa isla nimanka waa tiimkii un laakiin annaka ayaa marba tiim cusub imanaya baan koori marka tiim cusub wuxuu u baahan yahay haddana markasta inuu waqti تزيد لك صوب العبية ولا أهم سنين وضدي كاسي هرية أنا أهم سنين وضدت إنك برشة كل واحد يدك دلك الدولة ما دلك كيانك أنت واحد لو يدير لها والبرسة والحسن ما يسال وحويك برشة لسارة ولا مسينية سيستم عصب أي اللي كيانية حسنا ما صعناه فلقات كنا قاعد لندن لو بدي شيء مقارنة سيستم أمريكا قرن ولا يقول ما تقول شيء مقارنة من برلمان كي يحكم ay ka wada shaqeynayeen marka waxa weeye waxaad moodaa itijaaha siyaasadeed ayaaba imika aad moodaa inuu isagu maamulayo amniga taasna waa dhibaato waa in la kala saaro labada waa kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Xuseen Macallin la taliyay hore amniga madaxweynaha Soomaaliya Xuseen dawladdu dadaalay wada waxaan qiyaasayaa amniga xamar iyo qadada markii la dejinayna wax ka weyn aad joogtay ma waxa ku muuqda in dawladdu ay gabtay mas'uuliyadeedii dhanka amaanka ah mise waxa ku muuqda duldareero kale oo dawladdu dadaalkeeda ku lifaaqan oo ka awood badiyay in amni wax ka qaban wayso waa maasantahay waa horta ereyga dadaal ayaa mar walba maqalnaa xataa iyadoo madaxda qaarkeed ay leeyihiin waa dadaalaynaa dadaalku haddii uu dadaal xikmadaysan uusan ahayn dadaal lama dhigi karo waa adoon directionkii rusaambul afgooy adoon raba haddaad dadaasho directionka balcad aad aado dadaal baan la dhihi karaa kaas dadaal ma aha marka yacni waxa siduu wasiirku u sharxay wixii lagu heshiiyey ama ayaga ha ka horeeyaan ama xilliga ay joogeen ha ahaatee ayaa ay ama si ku talagal ah uga gaabiyeen u diideen ama si faham la'aan ah ayay uga gaabiyeen ay u qaban waayeen marka waxa muuqda oo ah su'aashaad hore ahayd shabaabaa xoogaystay cadowga aad ishaysaan markuu xoogaysto waa fashilkaaga inuu xoogaysto micnaha ma aha shaqadaada ma aha inuu xoogaysto tirana ma badan karo xoolana canshuur intii ka badanna ma qaadan karo therefore yani cadowgaaga haddii uu guulaystay adiga fashilkaaga waay marka yani in aan ereyga dadaalna isticmaalno cadowgina waa batay waa xoogaysta la yiraahdo wax isqabta maaha marka su'aasha nuxurkeeda waxay tahay waxyaabihii lagu heshiiyey oo Soomaalidu ku heshiisay ama ha ahaato dastuur iyo shuruuc ay hore u soo dhigatay ama heshiisyo siyaasadeed oo isla ogeyd markii laga baxo oo aan hawshii la qaban ayaa dadaalku wuxuu noqonayaa dadaal aanan jihadii loo socday aanan ahayn oo meel kale la aaday
waxaan filayaa xamar waxaa la yidhahdaa waxaa ku baxa lacagta ugu badan ee ciidan la siiyo ama amniga lacaga caqli gelin baa la sheegaa in ammaanka xamar lagu bixiyo ciidamada ugu badanna way ka howlgalaan dowladdu waa isheeda dhaqaale madaxtooyadii ay degan tahay sidaas ay tahayna waxaa lagu tiriyaa gobollada dalka meesha ugu liidata amni ahaan markeeda xamar intaasoo dhan marka la isku daro madaxweyne kasta oo talada dalka qabtaayna waxa ugu weyn oo raadiyo waa amniga muqdisho uu helo kumana guulaysto marka waxaan leenahay intii aan soo aragno dhanba istiraatiijiyadda ka khaldaneedo amniga magaalada lagu saxay waa mahadsantahay horena wasiirku waa u sheegay run ahaantii amniga labaad u qaybinaysaa waa mid farsamo oo qalabka u baahan tahay iyo tirada ciidanaad u baahan tahay iyo khidadaad amniga u dhigayso waxaasoo dhan waa farsamo waxaa ka muhiimsan oo ka horeeya siyaasadda magaalada muqdisho haddii siyaasadda ay ka khaldan tahay ay yacni aysan dadka ku nool aysan qaabkay u nool yihiin iyo qaabka loo maamulayo aysan habi ku ahayn yacni in ay wax kasta oo farsamada oo aad qabato xataa ma shaqaynayso tusaale haddii magaaladan dadka ka taliya ay soo dooran lahaayeen golo degaan iyo meeyarka ay shacabku iyagu intay cod aadaan oo ay soo kala xushaan kii u roon ay keensadaan shacabkaasu in la weydiiyo xataa uma baahna inay taageeraan nidaamka magaalada ka jira maadaama iyagu ay u soo codeeyeen way difaacanayaan way ilaashanayaan amniga iyo nadaafadda iyo wax kasta oo magaalada horumarkeeda iyaga ka shaqaynaya waxa maqan waxay tahay qof uu iyaga ka mid ah oo laga yaabo inuusan qofkii saxda ahayn ama shakhsiyaad fara badan oo iyaga ka mid ahaa ayaa la soo qabqabanaya oo dana gaara laga leeyahay dadkii marka ma la relate garayn karaan qofkaas yani taageeradoodina maysan siinin qofkii isagana dadaal uu bilaabayaa maadaama uu muwaadin magaalada u dhashay uu yahay isagoo dadaalaya ayaa haddana waxaa laga dhex arki weynayaa danihii laga lahaa bedela imaanaya meeshaasa marka iska daba noqnoqodkaas ayaa waxaa ka dhalanaya yani kalsooni xumo lagu qabo maamulka meesha ka jira shacabkii marka waxay leeyihiin adiga taada maaragtay u badbaad qof kaleeto badbaadadiisii iyo magaaladan maaragtay mas-uuliyad kaama saarna waxa ku qasbay marka inay maaragtay shabaab ay canshuur siiyaan shabaab ay maxkamadahooda aqbalaan waxay arkeen nidaam aysan waxba ku lahayn shabaabna uu de awoodii iyo muujinayo iyo weliba efficiency uu muujinayo dadku shacabku marka inay shabaab aqbalaan oo ay maaragtay yani naftooda badbaadsadaan marka amnigu wuxuu ku halaabay dabcan saa og tahay shabaab magaalooyinka ay ka taliyaan amni kama halaysna soo maaha waay obvious dabcan malihii dadka oo meesha ay joogaan ayaa taageersan laakiin shabaab waxay ku guulaysteen waxay tahay inay dadkaas waxyaabaha ay yani oo baahidooda ah for example cadaaladda waxyaabaha dadku ay aad u daneeyaan cadaaladda u horeysa qof haddii uu damco inuu ku xadgudbo markiiba waa looga soo jawaabayaa marka qofkii wuxuu ku qancayaa nidaamkan hadduu rabo uusan ku raacsanayn siyaasiyan laakiin maamulkiisu wuxuu leeyahay maamul aniga ay anfacay waaye beertaydan ku agfashaa xoolahaygan ku ag dhaqdaa midda shabaabaan kugu soo laaban doonaa waana mahadsantahay faahfaahin waad ka bixisay cabdiraxmaan durjaana cabdiraxmaan yuusuf waxaa la yidhi amniga wuxuu ku xiran yahay siyaasadda oo saldhigata yeelata oo adkaata amniga guud ee dalka weli waa la isgala soo tagay xamar hadda laga hadlaya ma is leedahay iyadoo annaa siyaasadda soomaaliya beeskeedu fariisan oo aan la isku raacin amniga wuu hagaagaya والله اسمه لهن هذا سياسة بيس لهين أو واحد صومالي كل شيء استهاي إن أمن هذا السوق كره فرصاب الواحد سنة دولة هذا الجوك تمان ديت وحيو هاي ستي أفر قضب إن الفلسو وحكم بدها constitution كنا لما يسترتو قبل قرالك وحكم بدها أمنية هير قبلي هير دقمة إلى سقطه وحكم بدها حلقة في حلقة iyo federalismkii oo dawladii xubnaha ka ahaa federaal inay dhisto waxa laga yaabaa dawladihii la dhisay saddexdii qodob oo kale wax laga fuliyay male
qodobkii afraad oo la dhisay waxaan u maleynayaa xasan sheekh baan u maleynayaa xukuumaddiisii baa dhistay dowlad goboleedyada dhammaystirtay ayadii baa hadda duulaan lagu yahay oo kana saar kana siib la leeyahay bacdamaa dhiigbax uu ka jiro dalkii waxaan kaloo idiin sheegaya khatarta hadda maanta oo jirta sideedaba haddii wax kontrabaana ceelasha biyaha haddii warshad kontrabaana hadda ay ka furan tahay oo xamar productionkii waxay soo saaraysa lagu qabanayo ma u malaynaysaa in la helayo waxaan ka wadaa nimankii waxay joogaan 30 kilomitir wax ka yar ama 5 kilomitir maalin walbana waxbaa la qabtay iyo qarax baa la qabtay iyo waxbaa la badbaadiyay baa leeyahay warshadiina way furantay waxaan kaloo dhihi lahaa runtii aad ugu ammaanaya laba inaan kala saarno ciidamada geesiyaasha ah hadda meeshan waxa ku fadhina waa amni ciidamadu intii awoodooda ahaa way qabsadeen amnigooda laakiin dadkii waxa way ku shaqayn lahaa iyo logistikadoodii iyo baahidoodii baad waxaad moodaa gaabkaas in dawladii in meesha ka maqan tahay laakiin waxa in la isweydiiyay mudan gobolka banaadir xasiloon darro siyaasadeed ka jirta maxay noqon kartaa maamul goboleed maahan dawladdu iyada dhista markii uu anfici waayay iyada xilka ka qaada dadkii canshuura laga qaada wadooyinka laga xiri ma banaan baxaan doodma sameeyaan waa hoggaansan yihiin amni darrada xamar sabab ka noqon karta xasiloon darrada siyaasadeed maxaa weeye waxa saameynaysa mid dalka oo dhan ka jirta mise si collectively Soomaaliya hadii anagu waxa weeye ama gobol joog ama degmo joog ama xamar joog siyaasaddu way isku xirantay maanta siyaasadda hadda ka socota waxa weeye Kismaayo way saameynaysaa gobolka Banaadir markii lagu wajaho wax allaale iyo wixii dawladdu qaban lahayd oo focus ka saari lahayd oo amniga Banaadir ahaa haday gobollo u rarto ama meelo kale dad kale kula dagaalanto waa imaanaysaa gaabkaas waa imaanaya marka waxaan aaminsanahay runtii shaqadii loo idmaday oo saxda ahaa iyo mandate-kii saxda ahaa oo hadda xukuumadda jirta loo idmaday inayba garab marsan tahay oo meelo kale gacmaynayso waa maasanta gudoomiyaha guddiga difaaca golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka hore gaashaandhigga mudan Xuseen Carab Ciise gobolka Banaadir iyo gobolada ku teedsan sida shabeellooyinka maanta waxay joogaan meel aad u daran dhanka ammaanka marka la yiraahdo darada ugu dambeysay ciidamada waxay ku dhamaadeen meeshaan la furo oo waliba ciidanka commandoska Soomaaliya ka tirsan waxa ka sii horeeyeen ciidamada loogu galay ceelsanay meel ilaahdo ilaa 40 wax ku dhow laga dilay ilaa haddana cid ka hadashay ma jirto gaadiid waa lagu qabsaday marka iyadoo xamar go'doonkan ku jirta dadku ay dhaqaaqi kari laayeen ganacsiga socon laayahay dawladdu hadba ninkay doonto magacaawday ka qaado xamar wuxuu degi laayay سؤال هذا ونكسل أنت أتشكت أو قدرت ودق لا وحوسات شكتي هيئة أمنية ما دحضر وفيرسو أفسد عليه سنة أنت صوت لي على بدلي أنت زي وزير بلا بدلي أنت كستبوا حب هي ويران سنة ولا قبض ماشي بروح كنت صورت ماشي ومسر سمر حين وجاورات كتير هذا كله أنت تنوصل نقولنا ما وقت هاي waxaa gobolka Banaadir maxaa keenay waxa soo dhanba ka jiray amni darro waxa way gobolka Banaadir oo meesha ugu population ka badan oo meesha ugu dhaqaalaha badan haddana dadkeedii waa dhaqaalaas ma gaaro boqol yani shaqo la'aantu waxay gaaraysaa boqolkiiba 90 wax maskaxda galma inay boqolkiiba 90 ama ka badan ayna meel subaxii u kacdo ay shaqo doontaa inay jireen meheradii yar ay ku shaqaysanayna waa laga xidhay oo isku socodkii waa istaagay marka taas cabarintaas horta waxay keenaysaa inaan dadkii shacabka kula shaqeynin oo askarigii ku ag taagan hadda wax aragto ma sheegaysid laano hor systemkeena waxa weeye ma aaminsanid oo wax la galaad imanaya teeda kale ogow xukuumadahan adduunka horumar ee degan maxay ku degan yihiin waa adeeg bulshada waxa weeye waa inta waa tacliinta caafimaadka biyaha oo wax bulshada loo qabto marka waxa weeye taasa contract la galay shacabka waxa la inta saddeysirayna adaguna dawladii taageera maalinta ay waayaan waadi wax ka dhaca adduunka kale innaka laakiin mushkilada waxa weeye imaka halwadaag ama hodan ama degmada doonta tag iskuulku waa private caafimaadku waa private maxay ahayd biyihii waa private korontadii waa private xukuumadii markaa wax ay kula gasho contract shacabkii ama dadkeedii maba jirtaba marka qofka shacabka faa'iidada uu ku qabo xukuumadda joogta maxay tahay mushkiladu waa taharta talabaad iyo gudihii oo loo soo galay saad ku sheegay al-shabaab gudihii soo galay oo imaka aad suuqa u gashteen yani oo garsoorkii ayaga loola tagay laana garsoorkii baa gacanta ka baxay oo sidii aan ku dhameeyo siiba gobolka Banaadir waa ognahay garsoorkeeda waa in shaqo laga qabto weey si seelada oo kale noqdo qofka shacabka ah yani cadaalad ma helayo
marka maxay ku khasbeen dadka inay dadkan ka raadsadaan wax waa dhibaato xataa in fikirka lagu fikiro aan ku soo wado in xataa fikirka laga fikiro ay anaga psychological warfare marka waa laga adkaado inuu jiro iyo in kala ogin haddana waxa lagu leeyahay qof kastaaba xaggaasay wax jiraan maxaa keenay dhowr sano ka hor wax lagu riyoon kara ma ahayn ilaa sidaa marka runtii amni darrada muqdisho saas sheegtay ugu population ka badan ugu dhaqaalaha badan waxa ka yeelay laana population ki deganaaba ayaan dhaqaalahan la sheegay baba arkaan adiga iyo Xuseen waxa soo hadal qaadeen shabaab garsoor loo doontaa amniga deegaanka suuqada anuma waa loo doontaa adoo fiirsa hadalkayga aad waxaan ku iri in dadka lagu yiraahdo inay jirteen ma ogin laakiin ina fikirka noocaas yimaado ayaa khatar ku ah laana qofka waa inaad adigu shacabka Soomaaliyeed fikirkooda adu baratantid weeye adigu aad kasbatid weeye laakiin haddii marba laga kasbado waa laga adkaado adigoo maanta maalin ka ciidan badannahay ma jirto maalin ka hub badannahay ma jirto ka saanad badannahay ma jirto haddana in magaalada Muqdisho si loo socdo la soo galo yani waa dhibaato weeye waa ma santa Xuseen Macalin wuxuu kasbashada al-shabaab ama deegaanada al-shabaab jooga waxa tii xoga amnigu ka jira amniga waxaan u maleynayaa dhowr nooc dadku wax uga eegaan al-shabaab gacan dibadda uga timaada deegaanada ayaga ay joogaan xogaa way ka nabdoon laakiin ayaga amni ma laga helaa dadku xoolahooday dhacaan canshuur iyo wax kaloo aan awoodin bay ka qaadaan qofkii ka soo horjeestay waa xiraan waa dilaan amni ma dhihi karnaa taas aragtida qofkaan ku aragtiyahayn waa sax dad oo de aragti furan ma aha dhulkooda laba siyaab ugu noolaan kartaa inaad taageersan tahay iyo in aad hawsha ay wataan aadan khatar aadan ugu muuqan dawlado badan oo dunida sida u jiraan way jiraan dawladaha shuuciga ah oo aragti lama ogola Eritrea haddaad tagtid maanta macnaha fikirka rabto ma dhiiban kartid afaweerka haddaad wax ka duwan sheegto macnaha afaweerkii marka shabaab waa isku noocahay wataan oo ah qofkii aragti duwan ma nabadgalayo laakiin qofkii ammaan siiya ama ay u aragti noqda waa marka qaabkaas ay ayagu amniga laakiin qofka shacabka ah haddii uu dantiisa raacdo sida hadda majority dadka magaaladan ku nool inta ay rabaan ay tahay inay dawlad taageeraan iyo inay danahooda ma qof walba subaxdii uu soo kal lahaa inuu danihiisa fushado hadduu biil uu keensan lahaa iyo caafimaad uu aadi lahaa iyo haddii intaas ay nidaam ka helaan shacabku waa hoggaansamayaan marka ammaan kamaana wadi laakiin tusaale ahaan dhul waxay ka adag yihiin dadka ku hoos nool macnaha tuugga waa ka ilaalin karaan annaga tuugga kama ilaalin karno annaga xaggeena tuug waxaa ka ah shabaabka oo u soo xero taraaraxay Soomaal kama celin karno yani waxyaabaha amarada ay soo saaraan magaaladan way ka shaqeeyaan saa la socotaan wax hadda qarsoon ma aha dadka hadda meesha fadhiyana magaaladii ku nool yihiin amarada ay soo saaraan haddii yiraahdaan Baroniya la dheerin Baroniga lama dheelaayo haddii yiraahdaan maaragtay meeshaas laguma kulmi karo marka yani awood jirta ayay ka noqdeen iyagoona gacanta ku hayn magaalada waxaan rabay inaan hal mid oo aan ka sheekeeyo su'aal daaya weydiisay wasiirka magaalada Bariire ayaa 2015 nin martii ahaa oo dibadda ka yimid ayaan fursad u helay anoo sarkaal dawladda ka tirsanahay Bariire 2015 inaan beer ku taala dalxiis u geeyo maalin dhaweyd marka Bariire la qabtay ay dawladdu ay aad u bombonisay soo wacay wuxuu yiri oo kale meeshii 4 sano ka hor ay geysay dalxiiska ma haddana la qabto yiri ya marka yani waxay ku tusaysaa tusaale u tahay ninkii waa ka dhaadhicin waayay Bariire waa horeyna daysay waa hadda maartay marka la gacanteenu ku soo dhacday iyo wax la mid ah amniga aan ka shaqeynayno amni jahala ma aha oo dadka halka dhinaca maanta dhanna waa lagu celinay dadka dawladnimada raba iyo dadka shabaabka waa laba dhinac Soomaal qaybta dawladnimada rabta oo ay dawladda federaalka u horeyso oo ay goboladii ay maartay ay xubnaha u yihiin oo ay dadweynaha iyo qalbiga guud laga rabo in dawladnimo run ah ay hirgasho dagaalka si wadar ah ugu ma jirto wadar la'aantaas ama wada jir la'aantaas ayaa wuxuu keenayaa
in ay shabaab ay mar walba yani si uu يعني nooga faa'iideystaan annaga habaceena dawladda federaalkana mas'uuliyadda koowaad leh hadii shabaab sida u dhaqmaa loo hal mar waxa raba shabaab qofkii ay wax amraani diiday xukunka ugu horeeya ay kan ugu yiri kan ugu weyn waa dil sax marka shabaab wuxuu ma dadku jecel iyo wanaag iyo u qabaan ba ay cadaalad iyo ka helayaan waxa weeye waa cabsi ay ka qabaan runtii fiiri horta markii dawladnimada la sharxayo sideedaba asaaska dawladnimada waxay tahay awoodda oo dalkaas ka jirta waa inay hal gacan ku jirto oo micnaheeda afka qalaad lagu yiraahdo monopoly of violence inaa qofka wax dili kara waxna difaaci kara waa inay dawladdu noqoto dawladdu waa ku fashilantay Soomaaliya cid allaale cidii awoodda marka inay iyadu markaas waxeeda fushato ayaa ama dawlad u dhiganta ama maaragtay yani danaheeda ka fushan karta marka taktiga ay shabaab isticmaalaan inay dadka ama ay dilaan ama ay handadaan waxa muhiimka ma aha dawladda mas'uuliyaddeeda waxay tahay shabaab inay waxba handadi karin inay gaarsiiso oo inay awoodooda weeqaan oo ay gaarsiiyaan heer ay sidii tuug amal oo in dhuumanayo in la soo qabto u baahan oo uusan amar ka soo bixi karin laakiin waxaan ognahay waxay tahay maanta oo wax qarsoon ay ahayn oo macadkayga hiraal uu qoraallo oo well researched macadkayga aniga hiraal la yiraahdo madax ka ah qoraallo oo public oo aan soo bandhignay oo website-ka aad ku arki kartaan qaabka ay canshuurta uga aruursadaan dalkoo dhan macal kasoo bilaabo xoolaha iyo beeraha ilaa aad timaado maaragtay magaaladan Muqdisho ay ugu weyn tahay dekada dalka inay ka aruursadaan canshuurayga ay leeyihiin micnaheedu maxay tahay inay dalka iyaga dawladeynayaan yaa ku fashilmay inay dawladeeyaan oo u diidi lahaa dawladda ay marka meesha ay ka jirto waxay tahay handadaadoodii waxaa la suuro galiyay u suuro gashay inay canshuur by the way warkaana waxaa xaqiijiyay Washington Post wasiir Bailey ayaa 2 usbuuc ka hor wuxuu yiri arintaas markii la weydiiyay maxaa hawshaas wax uga qaban weyseen shabaab lacagta aruursanayaan wuxuu yiri arinta ugu weyn oo dhibaatada ugu weyn oo dalka haysata waaye ka dawlad ahaan anagu waa ku fashilanay saas uu qirtay wuxuu yiri waxaan ku fashilanay inaan arintaas wax ka qabano waa maasanta waa ku soo laabanaya waxaan siinayaa agaasimiin hore ee shaqriye qayr ku daro okay wasaaray waxa la rabaa moogtahay qofka actionskiisa wax ka garantaa Soomaa maanta message-ka ama fikirka ay dirayso xukuumadda maxay tahay kaba soo qaad maan dhaweyd madaxweynaha Sheekh Shariif hore ayaa lagu horbaahdilay ummadda oo dhan arkaysa oo loo diiday meesha darabeen oo tago xuquuqdiisa bini'aadanka lagu takrifalo waa ninkii al-shabaab ka saaray Muqdisho weeye waa ninkii yani 9 10 11 iyo 12 inta u xidhay ya nimankan baabuurta waaweyn iyo makayfada ku jira isagu wuxuu galayay faradku galay ninkii ku sifoway marka inuu la dagaalamo oo dalka oo dhan ka saaro haddii isagii aad marka ummadda ku bahadilayso message-ka aad al-shabaab u diraysa maxay tahay shacabka Soomaaliyeed yani waxyaabaha yaab kala weeye yani wasaaradii amniga ayaa arrimaha gudaha ayaa 2 mar la qarxay oo la galay marka wax mushkiladdu waxa weeye marka inaad eegto dhaqdhaqaaqa aan sameynayna shacabka message ku diray ragii la soo dagaalamay al-shabaab ee dalka ka xoreeyay hadda iyakii awoodda dhan ay saartaan aad la dagaalanto runtii anagu marka meelaha dhinacyadaas oo kale shaki weyn baan naga jira yani diyaar ma loo yahay la dagaalanka mise waxa weeye arrimo kala jira meesha waa maasantahay dagaalanku sheeg waxaad weydiisay arrinta ka dhacday ceel saliini arrin aad u fulxin bay ahayd ilaa hadda warka ma hayno anagu ka gudi ahaan kullay hadda wasiirka iyo taliyaha warqada waa u dirnay waana noo imanayaan baarlamaankana imanayaan marka guddiga ma hor imanayaan waa in la cadeeyaa fashilka noocaas oo kale waad ogtahay hubka meesha lala wareegay iyo hubka yaalay yani waxa lagu xoreyn karaa dalka oo dhan in si fudud loola wareego markii koowaad maaha labaad saddex afraad dhowr mar bay dhacday waad ogtahay Gordon waxay lagala baxay shirkii hubkii lagala baxay meelo badan way ka dhacday marka waxaa jira marka yani marka baldogle 2011 iyo 12 afar mar baan dhulka marnay oo tagnay markaasuu sheegay berigaas la qabtay waa 11kii imika waxa maraysa markii lixaad hadana marka dib loo qabto yani wax maskaxda gala maaha meel shalay la qabtay maanta hadana la qabto marka runtii maxaa keenay marka in iska dhaaf baldogle carbiska madaxweynuhu uu ku tago helicopter 11kiina aan dhulka marinay ilaa iyo baldogle yani maxaa khaldan weeye su'aasha la isweydiiyo ma santa waana ku soo laaban doona dawladda madaxii hore nabadgelyada Puntland Cabdiraxmaan Jaan
shacabka gobolka banaadir ayaan ka dhammaan doonaa su-aasha ugu dambayso dhankaas rabo inaan ku weydiiyo shacabku dowladdu xuquuqay ku leedahay ta ugu weyn waxa weeye inay canshuur bixiyaan dadku canshuur way bixiyaan qof kasta oo xil qabta ama taliya ha noqoyo ciidamada ama madaxtooyadii ha noqoyo ama wasiir ha noqoyo wuxuu yidhahdaa shacabka nala shaqeeyo haddii mar shacabku uu inay canshuur bixiyaan raallina ku noqdo in waddooyinkii laga xiro ay lugeeyaan shaqada kale dowladda shacabku uga baahan tahay maxaa weeye والله أرنتها نسيب تروي شعب قوة ذاتك كلية ما أنت الله إلى علينا شعب قوة ذاتك إلى عشان الدولة ديس رنتي بقدين شوكتة هذا ده المجال هذا مرتين ده قفك على هذا يقفك قرحية يقفك الدنيا مجالس واحد شرتي مدحوينه دول قبلية متكملة بعمل بقدي مجاله خطبة وشيدي وضيبة مركزي في عروها الله وحير النبان كان وانا الله يندق ميرة هذا waxba nagama reebay labeentiina waa naga laayeen waxma nooliso ugu laa wuxuu arkay wiil adeer u yahay oo saa u soo fiirinayo maalmaha la soo hayo si hadda madaxweyne inaan nimanka caayo maartay wax diin ku dhaamana ma labi marka dadkii waa babaqayaan maxay ka shaqeeyaanba marna dawladii baa checkpointigii baa la dhigayaa oo waxa way halkaas u yaala marna waxa weeye ayagii hadda waxaan runtii la taliyaha hore madaxweynaha mudane Hussein Macalin waxaan aad iyo aad ugu taageersanahay sideedaba hadda barnaamijka hadda nimankan hadda dadka hadda waxay kula joogaan anigu waxaan aaminsanahay baqdin inay tahay waa saas wax diin ku dhaamana ma la weeye laakiin hadday badiil heli lahaayeen dawladoodii waxaad moodaa arrintaas oo dhan maanta haddii la tago magaalo kasta oo hadda u fiirsada la tago isla markii mudaharaad iyo taageero baa ciidamada qalabka sida lagala hortagaya waxa dareemi kartaa dadka marka dad hostage ahaan loo haysto inay yihiin si hadii loo fiirana waxyaalihii asaasiga ahaa oo markaas meesha ku noolaa waxa laga yaabaa iyo kala dambeyntii inay meeshaas amni ayaga u tahay laakiin baqdin inay ku joogaan anigu marka waxaan aaminsanahay dadka shacabka in laga kasbado waxa weeye cadaawad ma midda shabaab wax diin ku dhaamo ma noo faahfaahin kartaa ma noo sheeg wallahi hadda ninka baqdin baa ka keenay markuu arkay wiilkii oo hadda adeerka u ahaa oo saa u soo fiiriyay oo isha ku gubaya inuu isbadbaadiyo laakiin adu aragti aqabta ma aragtidii qabo horta waxay tahay aragti ka dheer ma qabo ma iska adigu baqdin ninkaas oo ka baqay waliba madaxweynaha baa markaa la yaabay wuxuu yiri asagii shaki baa galay odaygu xagee wuxuu marka asagina waa sii maamahay wuxuu yiri laba nin baa libaax raad qaaday raadkii markii ay wuxuu orama libaaxayna ka fiiri ama raadkiisa inoo hay wuxuu waa ina ka fiiray kii libaaxa fiirinaya baa libaaxii arkay si war maxaa aragtay si waliga nin ii jeeda ma xaman marka ninkan odaygan waa loo jeedaa marka madaxweyne wuxuu yiri meesha waa la fadhiya marka waxa weeye waxaan aad iyo aad runtii aan ku taageersanahay wasiirka arinta hadda dhacdadii ka dhacday waxa weeye airportka oo kale oo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed laga celi waa wax history waa wax runtii taariikh Soomaali u noqon doonta madaxweynihii nimanka dhalinyarada meesha ka saaray shabaab meesha ka saaray oo airportku furay maanta la yiri kama bixi karta picture-ka ay bixinayso oo xataa cadawga u gaarsiinayso maxay noqon kartaa waa arrin siyaasad annaga internaala oo kala jabnaashaha iyo sidaan waxba la isku qoorana la isku ixtiraameen tusaale u noqonaysa marka arintaas waxaan leeyahay waa ma santahay xilibaan Xuseen Carab Ciise waxyaabaha ugu waaweyn ee la rabay loo baahan yahay waxa kamid ah dib u dhiska ciidamada dawladana marar badan way ku soo celisay way sheegtay su'aalo badan dad way ka qabaan maxaa noogu sheegi kartaa oo maray ciidamadii sida uu sheegay la taliyo hore national security dalka madaxweynaha u qaabilsanaa heshiis baa la sameeyay system heshiis baa la galay dib loogu dhisayo ciidamada qaran waa laga leexday waxaana keenaya bahalku hadduu bayska hoose ka dhisnayn weligeed ma hagaagayso waxaana bays u ah amni iyo ciidan qaran la dhiso siyaasad loo dhan yahay haddii dadkii markaa systemkii federaalkana waa la qaatay marka maamuladii iyo dawladda dhexe haddayna is aaminsaneen oo cilaaqaad ka dhaxayn sidaba ciidan qaran loo wada dhisanaya marka aaminaad la'aan baa jirta marka dawladda dhexna kaligeed ma dhisi karto ciidan qaran oo banaadir oo kale dhisaysa marka istira galmudug tag waan adu galmudug ay siyaasadeeda degan tahay ama cilaaqaadka ee dawladda dhexla lahayd ta Jubbaland ta Puntland haddayna deganeen
generaalka halkan joogay ama taliyihii aad magacawday ma amri kara ninka maanta jooga garowe maya waxa mushkiladda waxa weeye sideeba marka go'doon baa jira yani u dhaxeeya farmaqdisho iyo maamulada iyo degmooyinka ku xiga iyo amarkii baba gaadhayaba iskuma xidhna ciidamadii hadda marka waxaa la bilaabay barnaamijka marka la waxaa la sameeyaa telecom iyo ma garanaysaa in la xisaabiyo laakiin waxa waqtina ma jiro 4 sanana waa la soo waday xukuumad ka soo timaadana way samaysaa laakiin waxa la doonayay barnaamijka anagu marka nala ku joogna la sameeyay laakiin ma kuwa ka dambeeya way baabiinayaan mid cusub baa la bilaabaya kuwa imika jooga iyadoo meel fiican maraysa la yimi wixii hore dhan waa la baabi'iyay system cusub baa la bilaabay ka waxaad mudamar inay tahay project ayna ahayn runtii yani si sax in loo tiro koobo ciidamada oo ciidan qaran oo loo dhan yahay la sameeyo ciidan waa joogay markii hore ciidanka waxa la doonayay siduu yahay lagu habeeyo wixii lagu dareeyay lagu daro laakiin in ma garanaysa gabigiisa haddana laga soo bilaabo ground zero mushkiladu waxay keenaysaa markaas aad sheegtay al-shabaabkii la dagaalamayna waa nimankii adiguna maalin kasta waxaad la hor imanaysaa tiib cusub baad la imanaysaa oo mushkilada waa maasanta xuseen baan rabaa la taliya inaan siiyo mana la taliya hore amniga qaranka waa maxay sababta ugu weyn ee dawlad walba ee timaada ama hoggaan walba ee talada dalka la wareega oo zero uga soo bilaabo dib u dhiska ciidamada oo wixii hore ila dawladdu waxay tahay inta la baal maro wax cusub loo bilaabay waa mahadsantahay waa actually su'aal oo aad u muhiim ah waxaan rabay inta aanan ka jawaabin aan rabay hal mid inaan ku darsado doodii hore oo ah dhacdooyin dhacay xilli dhow ayaan rabay tusaale inaan uga soo qaato oo ah dhibkii ka dhacay ceel saliini iyo kii shalay ka dhacay dhulkan ceelasha biyaha agtiisa oo ah in yani ciidankii aad loo dhaawacay haddana aad moodo in la qariyo ay ka mid tahay waxyaabo wax wanaagsan laga dhigayo dagaalka lagu jiro dagaal u baahan waaye hufnaan haddaad isbuuc hadda kama soo wareegin balidoogle markay nimankii weerareen maalin koowaad nimanka maraykanka ahaa waray soo saareen iyaga iyo safiirkoodiiba waxay yidhaahdeen wax dhiba ma dhicin kadib ay isku noqdeen maalinka ku xigtay ayay haddana qoladii africom oo dagaalka waday ayay haddana update ay soo qortay macnaha inay hawsha meesha ugu dambeysay noo sheegaan waxay yidhaahdeen hal askari oo maraykan ah ayaa jug gaartay waa jugya annagana xasuuqaa dhacay marka yani nimankaas dhibka dhacay haddii 10 ka dhiman lahaydna ma qarin lahayn jugna inay sheegaanna waxay u arkaan in dadkii ay u dagaalamayeen landadaa soo dirsaday mugti niman maraykan ay u dagaalamayaan dadkii u dagaalamayeen meeshay u joogaan dhibka soo gaaray inay u sheegaan marka yani waxaan rabay inaan fariin halkan ka dhiibto waxay soo bandhigeen soo muuqaal ay soo bandhigeen dagaalkii oo iyagoo guul fiican gaaraya laakiin haddana xataa jabkaaga dhibka ku soo gaara micnaheeda ma aha in for example dad oo magacyo lahaan jiray oo qoysas lahaan jiray ayaa dhintay haddaadan sheegin micnaheeda waxaa inkirtay inay noolaayeenba macnaa inay dhasheenba xataa waa inkiraysaa dhimashadooda haddaa sheegi weyso qofku markuu dhashay يعني نرال دميسترن وصلنا مالك ودنتو وين جبتر كاس أدو قرتو إنه جبتر سوي حربية هذا الشيء معناه إذا قف كاسو مجرين مركب إنا يعني دجال كإنه باني هاي إنا دبك كسو جارا لقريو إنه وح دجال كسو كوريني سماه دجال كأكشلي وح كسو كوريني هذا دبك أشياء إنه دبك كسو جارا وحلا يا بينا لقيرونه وشعب كيرادان يعني إذا كان يعني بسوق جاري marka midaasaan rabay inaan su'aashaadi markaan ku soo noqdo maxaa looga soo bilaabaa mar walba meel bilaawa sida wasiirku maanta ku soo celinayay aniga waxay la tahay waa kalsooni darro iyo ismuujin wax ku dhisan yani dawladnimaduna shakhsi ma ah dalalkan aan burburino annagoo kaleeta ah yani 500 sano ka hor daar dhisnayd ayaa laga yaabaa hadda inay ku shirayaan wali oo baarlamaankoodu fadhiyo sida baarlamaanka Ingiriiska oo kale 500 sano ka soo wareegtay
ama 600 sano baarlamaankii la dhisay 500 sano ka hor ayaa la fadhiyaa oo lagu shirayaa qoladaas laba dhiin baarlamaankoodii hal la dudumiyo 500 sano ka hor kuwa hadda maanta jooga ayaa waxa laga yaabaa inay kuraasta iyo mikrofoonka iyo wixii soo kordhay inay ka bedelaan laakiin oo marka dawladnimadu waa dhaxalkaas la kala dhaxlo oo la kordhiyo nidaamka iyo ciidamadana inaad sii qurxiso ma ogiyeen inaad adigu tiraahdo aniga dhalay aniga iga bilowdeen wax dawladnimada ku soo kordhaya maaha waa dawladnimadii ayaad yani curyaaminaysaa iyo dhibaato u geysanaysaa marka kalsooni xumay ka bilaabataa waa maasantahay daawadayaashan sii doonaa mikrofoonka si ay su'aalaha ay qabaan idiin weydiiyaan laakiin weli wax su'aalo dhiman yihiin cabdiraxmaan waxaa jira inkastoo ay socdaan dadaal la sheegay in lagu habeynayo ciidamadii madaxdiina xogaalka ahaydna ay sheegeen inay wixii aanay ku joogin haddana waxaa jira isbedello degdeg oo lagu sameeyo talisyada ciidamada arrintaas saameyn ma ku yeelan kartaa dib u habeyntii ciidanka lagu wado talisyadan degdega loo bedelaayo waxaa kaloo jirta cabasho xoog loo ka soo baxay ciidamada qaar sida kuwii dhaawacmay caruurtii agoontahay laga tegey askar dawladdu weli u dagaalamaya ama joogo qorigii wataan ama ku jirin tirakoobka hadda la sameeyo ugu dambeeyey waxyaabahaas oo dhan markaas ku soo koobtay saameynta yeelan karta runtii ciidamada iyo isbedelada ku yimaada taliyaasha waa arrin aad iyo aad sida saaxiibada sheegeen damage ku ah wax kasta oo horey u sii socday bilmatalan anigu meelo badan gobolladana waa arkay banaadirna waa arkay meelo badanna waa arkay si kasta waa la yeelay ciidamadii reform waa lagu sameyn waayay waxaana keenay taliyaasha laftigooda ciidamada fooliyo baagada ugu qoran oo laga yaabo ninka dhintay iyo ninkii dhaawacmay iyo ninkii ruqsaystay intaba meesha inay ku jiraan iyo kii howlgaba oo aan la bedelayn taas nin walba oo yimaada waxay ku qalbijab bay ku keenaysaa oo wuxuu leeyahay waxa ziirada looga soo bilaabaya meesha ciidamada dhismadoodii markii la yiraahdo hal qof baa 4 ciidan oo dastuuriga ciidamadeena buu ku jira mushaarna ka qaata caqabado weey arrintan ku saabsan dhaawac sideedaba ciidan macnawiyaadkiisa iyo niyadiisa iyo moral supportkiisa waxa lagu ilaaliyaa in dhaawiciisana la qaado hadduu dhintana dadku ka tagay la daryeel taasuna ma dhacdo laga yaabo iska daa qoryaha hadda laga sheekeeyay la qaatay dhaawac iyo dhimasho in looga soo cararo meesha taasuna waxay ku keenaysaa ciidanku inuusan carbis fiican ahayn oo tababar askarigu markuu ka baqayo discipline iyo garaado in laga qaaday buu ama waardiye qaban karaa ama dal u dhiman karaa markuu mabaadi ku dagaalamayo oo dalkii uu dagaalamay difaaciyo dalkiisa wadaninimo uu dagaalamay أنا نمكن أنا هذا إلى كسر كذا واحد اللي نقول له وإيديولوجية وفكر أيجو قبان أو خلدان فكر هذا بالمثل تصارع عن أهل السنة وحي شباب سكير اليوم ولي ما يسوديس وإيديولوجية يفكر وي وحا إسلاك وحي نمكن كأمسيين يكون وحكي كيد نتابع وحوليه جندي أفرح الله قبل الماي مركب واحد ويسيدا صوكله بالت كجد دفاع كرا ضد وعيدا للسن ومعويات كسرية ومشاركة هلي ودشبرين له وأسكر وهدو أمر كديدو من سيئة إن شقدي لقى قاضي جرادة لقى قاضي هدو من سيئة ما أنت هدو دعوة إن الدريه لي عيدا كمعنويات كذي يدي بعد اسمه صح أنا مركب واحد لا هاي هذا والله واحد لقى شق بيه هذا عيدا ما دي دور شربة واحد عيدا ما له سيئة هذه السياسة دي يقول هذا جاب بحجرة ماشي كم مكان عيدا إسامينات بما بحجرة دولتنا هذا هالكسر وحرصنتها أو 2021 مهل الله صعد على أقار مصير أمضيات أنا بحر أنا سنة هي آد إن إنسان على سوق مشهورين والقول احترام يا وقت هذا هي ستكونتي أو هذا عيد وصوص عطمالة لكن إن شاء الله تعالى دويحي كلا ولا سكت وإيمانه ما سنت حسين عربي مدن حلبان waxaa ka mid tahay baarlamaanka Soomaaliyeed dadka adaa matala maanta oo dhan aan ka hadlayno dhibaatada ku jira maalin walba ina martida waxa raali ku noqoteen golaha baarlamaanka in maalin walba xilka qaadis lagu sameeyo taliyaasha marka baarlamaanka Soomaaliyeed jira ayaa waxa la sheegaa in la kala diray hay'adina masuuliyadda qaranka ومهم واحد وحكلوا جرين في القائز قد جاي دعوة قرارات كلام بدن بعد عف
haddana ma aragno in baarlamaanka ay la xisaabtamaan madaxdii ilan ayagaa dabagalka iyo xisaabtanka ayagaa loogu talagalay shacabka ayagaa matala marka mas-uuliyad darrada dalka ka jirto soo ma dhihi karno baarlamaanka oo hay-adihii dowladda tii ugu muhiimsaneed ah oo dadkii wakiilka ah door weyn ay ku leeyihiin كلية موقتها أنه ذنب جاي ما كله حرينه لكن ده بعتها جرت أقول شيء كذا قلت في جد الدفاع حتى ده بقشوا وحنو ملينا كيف هرنا أنا كمان حكينا هذا تذكروش كرجوكتين بدن مركا اعتماد قيبت وزارة كل شغل اللي هني يعيد ماذا وأنك حتى يعني وحنو سبنا تان سوفر يسنو أيابان سي أوبنا ورئيسنا شعب يبرلمان كله سوف بدنا وحي كسب حنا يهو قرارنا بدنا مشكلتك باش كتير تقول شيء مرة baarlamaankii ayaabaa horta miiniskii uu wax ku korjoogtayn lahaa ayaabaan jirin dadkii adigu aad korjoogtayn lahayd baa miisaanadaadi gacanta ku haya waa mushkilad anu maanta maxay tahay miisaanada ugu weyn waxaa la siiyay ciidamada qalabka sida wasaaradda gaashaandhigga waa 60% maalmarinaya haddana ka badnaynba laakiin guddigeena waxaa la siiyay 2,000 bishii oo dollar sidee baan u korjoogtayn karaa marka anigu 60 milyan oo dollar xeer ma tagi karo dabagal sax oo physical ma sameyn karo waan u yeeri karaa waa karbaashi karaa waan weydiin karaa su'aalo baarlamaanka waan keeni karaa laakiin wixii ma kor istaagi karo intaan maanta dowladda qaataan kama degi karo maxay ahayd garow kama degi karo kismaayo kama degi karo waxa ka socda mas'uulka dhuusa mareed waxa lagu sameeyay marka program weyn oo la leeyahay waxa la sameeynaya isku dhaf ciidan iyo ciidan la qarmaynayo guddigii iyagu way tagaysaa xukuumadda lacag lacag bay haysataa budget bay haysataa kii anagu aan u proof gareyna weeye guddigii laakiin ku shaqada lahaa ma tagi karo marka waxyaabaha ugu waaweyn loo baahan yahay in lagu xoreeyo baarlamaanka waxa weeye baarlamaanku miisaaniyadiisa waa inuu madax bannaanaado sida fulinta ugu madax bannaan tahay ee aan la hoos geenin imika for example wasiirka maaliyadda wuxuu hoos yimaadaa guddiga maaliyadda ee baarlamaanka haddana lacagtii budgetkii baarlamaanka isaga gacanta ku haya sideebaad marka u kor joogteynaysaa waa mushkilad fikir yar baan rabaa inaan ka dhiibto marka meesha philosophiga baasha meesha iska qaban laadahay aragtida meesha iska qaban laadahay waxaway imika xukuumadda imika joogta philosophiga ay ku shaqeynayso iyo aragtida ku shaqeynayso waxaad moodaa laba meelood kala dhex luusan tahay mid waxa way systemkii la wareegtay oo la leeyahay federaal baan nahay oo waxa jira baarlamaan isla xisaabtamaya iyo waxa jira magaraysa fulintii iyo garsoorkii laakiin fikirka ku shaqeynaya waa kii militariga ahaa 1969 iyo dawladda dhex ku dhaqmaysay ee kala taliska ahayd mushkiladda horta meesha ka qaban laadahay waa halka marka ta keenaysa marka maamuladiina inaanay aaminin xaqii ciidamada waa taas waa soo joognaa annagu dawladda dhexe oo hal xisbi uu dalka dhan ka talinayo oo marba doorasho la qabtaan u malaynayaa doorashadii madaxweyne markaad joogto 99 meelahaas ku badiyay markaad meesha gasho hal xisbiba ku qoranba buudka markaad gasho meesha lagu samaynayo imika waxa socda waxa weeye markaa fikirka ah kala talis saad ogtahay degmooyinka imika degmooyinka 17 degmo ee gobolka banaadir dad ka socda magaranaysa lama yiraahdo maxay wakiilo ayaa jooga oo ka socda nabadii nolol ayaa dhex fadhiya xoogga wadaniinta waxa ka socdaan xafiiska madaxweynaha mushkiladdu waxay marka ma xisbi ayaa heer degmadii fadhiya marka waxay noqonaysaa in xisbiyadii kale loo ogolaaday in dad geystaan mushkiladdu waxay marka systemka kala taliska ah iyo systemka federal hoos ba qabanayaan marka meesha horta dhibaatada ay ka jirto la iska fahmi laayahay waa halka awoodihii loogu talagalay in lagula dagaalamo ama dibad lagula dagaalamo ama cadow lagula dagaalamo ayaa lagula soo jeesanaya dadkii la maamulayay waa systemkii shuuciga marka la soo arki jiray weeye xataa labada qof is garab fadhida ay kala baqaysan oo sheegto leerna bagaranaysi inuu basaas yahay in kale marka dadka systemkii la rabay inuu adiga ku ilaaliyo ka shaqeeyo adigaaga bulsho xorriyatul qowlka ilaaliyo oo la iska ka xidhi karin ayaaba imika adiga aad ka baqaysaa waa mushkilad waana la soo maray waana jiri jirtay marka waxaan rabaa dhalinyarada cusub runtii inay ogaadaan waxaa laga yaabaa inay qaar iska jibaysana jiraan laakiin meesha ay akhir ku dambayn doonta waxa weeye inay xorriyaddooda ay ku waayaan iyakuna ay kala baqaan akhirka waa meesha ku socoto waa siin doonaa waxaan rabaa laakiin su'aal aan ku weydiiyaan aan ka jawaabaha jirta arrinta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee la sheegay inay la kala diray dhibaato ma ku taha qaranka والله أنا دورت كم واحد هيئة نبضون أو سردون ولا كلا دري ما واحد شيء سكلا قاعد ولا كلا قاعد ما تشيء سا ما أوجي لكن هيئة نيسا ولا كلا دري هذا بحرمنا هذا يقولون أنا طالع مسعودو ما سنت حسين وحوجة ما كايس ereyga horta kala dirid uma malaynaa inay jirto laakiin waxaa jiray in ciidankii hubaysnaa qayb ka mid ah laga qaaday oo booliiska la geeyay laakiin waxaa haddana soo kordhay
inay ciidamo kale tababaro u dirsatay oo laba baajkii labaad uu hadda Eritrea aaday laba mar Eritrea 600 hore loogu diray haddana Eritrea haddana la aaday Eritrea waa oo aan heshiisyo naga dhaxaynin oo dawladda aan ilaa hadda ogeyn in maaragtay aysan aqoonsanayn madaxweynahooda Afwerki uu public la dhihi jiray Soomaaliya dawlad kama jirto meel aan isku aqoonsanay oo inaan hadda heshiis rasmi ah galnayna maanan arkin laakiin ciidamadii booliiska lagu biiriyay haddana ciidamo kale la soo qoranayo marka meeshaas iska qaban laadahay ma kala dir ma jirin waa maasan tahay waxaan markaan siinayaa dadweynaha waxaan ku guda jirnaa barnaamijka madasha wadahadalka dadweyne ee Samadoon waxaa marti ku ah halkan xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirkii hore ee gaashaandhigga dalkan ahaan jiray iyo Xuseen Macalin Maxamuud la taliyay hore amniga ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Yuusuf Jijaana madaxii hore ee aadna mas'uuliyadda iyo sirdoonka qaranka gabadhiina ku bilaawna rajaynayna microphone gabadha u geeyay wixii su'aalaad qabto amniga iyo ciidamada iyo ku saabsan microphone gabadha magacayga waa Ayaan Cabdi Cadeed kana tirsan yani xisbiga himilo qaran su'aasheeda qof gooni uma socoto laakiin waxa wada weydiina mas'uuliyiinta maanta midul qaada dhigay su'aali la weydiina markaas runaantii horta sidaa wada ognahay dawladda maadaama ay tahay dawlad federaal ah in waxa la rabaa awoodaheeda inay ka dhigto decentralization ee kala qaybiso sida aan ku soo baranay cilmiga siyaasadda waxa laga wadaa markii la kala qaybinayo awoodaha maamul goboleedada kale inuu mid walba leeyahay meesha uu joogo ka tali awood ku leeyahay dawladdan ay tahay markaas dawlad central oo ayada ma aragtay head of state ka wixii wada xukumayso haddana ayada ku amar ku taagleen karin maamul goboleedada ee xukun gooni oo la teey karin laakiin rabo inay wada tashi iyo la sameeyay yani si wax u bedelaan si u qabanaa in sida aan u jeedna hadda dawladdan madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayo waxaan ku aragnaa inay tahay dawlad yani sida dawladda hore militariga u dhaqmayso oo rabto yani xukunka ayada kaliya inay gacanta ku hayso maamul goboleedyada dhisnaa rabto inay bedesho haddana rabto si yani xoog inay ku bedesho maanta force hadda u soo gudagala dhanka yani awoodaha oo dawladdan dhexdeeda dawladda waxaa rabaa saddex qaybood inay u qaybsan tahay sida aan ognahay dawladda qaybta oo yani legislatorka golaha sharci dejinta executive-ka oo fulinta ah judicial-ka oo qaybta cadaaladda iyo dhanka maxkamadaha saddexdooda hadda waa isku milmaysaa u jeedno mid walba yani separate maaha oo gooni uma madax taagno oo amarkeeda awoodaheeda male baarlamaanka lama xisaabtami karo golaha fulinta sababtoo ay wasiiradii ayaa waxay wadiin xildhibaano 70% ayaga baarlamaan ku jiro inta ka soo harta yaraanaysan dicod la qaado oo aan markaas xukuumadda Xasan Ali Khayr ku jirin wasaaradda cadaaladda ma shaqeynayso awood ma lahan sida hadda la dhahay shabaab cadaalad loo raadsanaa daacadka ee dadka waxa meesha fadhiyo yani xeer ilaa qaadiyash kulli laalusha wada qaadanayaan awoodna mala ay wax kugu qaban karaan xogteeda ma inay waxa raba su'aashina u dhadhacay my comment waa iska cadda xog lama hayo laakiin waa sida probability aaminsan su'aal waa waxay yani waxa la rabaa qaabkee loo bedeli karaa aan u jeedaa yani maadaama sas iyo wixii ay tahay meesha la wajihi karo oo wax lagu bedeli karo maxay tahay dawladdan sanada u hartay iska deyn yani dawladaha soo socdo qaabkee la rabaa inay yani u hana qaadaan هذا ما سنتها قفك كحجة وحن رجينا نذكريستان إن شاء الله قفك كحجة أي سؤال هذا بسم الله مقعي وأحمد آدم حسن وحنا كم ده هاي اليرة رير مقدشة أو سياسة لسعودية هذه وقتية ودن بي حالة سؤال لسعودي مرتي شرف كمدحضة حلبان هذا ونمان والسلام يا waxaan rabaa inaan laba su'aal weydiiyo xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ah nin aan wax badan la socday siyaasadiisa iyo dhaqanka iyo macnaha marka waxaan rabaa su'aal waxa waaye dawladdu waxay ku fashilmantay howlgaladii iyo dagaaladii macnaha dib loo soo laabtay oo dadkiisa hor ku jiray 2015 ee amalena markii madaxweyne Xasan Sheekh dawladdiisii oo operation Indian Ocean yiraahdo ay dawladda ay qaaday operationkaas inuu istaago waxa sabab u ahaa in mooshin gaar loo furay dawladda iyo xukuumadda hawsha wadi taas waxa mooshinkaas waxyaalaha hurinaya waxa kamid ah maamul goboleedyada oo xildhibaanada saameyn ku leh oo qaarkood yani xildhibaanadooda hoos ka taaban jiray
saameyn ay ku lahaayeen haddii ra-iisul wasaaraha fahmi waayaan in meesha laga saaro ayay barashar ku keeni jireen dowladdan markii meesha imaaday jawigii ay qiimaysay waxay ogaatay inaysan socon karin oo hawsheeda iyo howlgalla aysan wadi karin ilaa nimankan laga dhigo niman la shaqayn kara systemka dhexe ama haddii aysan la shaqayn karin meesha ay baneeyaan taas marka waxay sababtay dowladdu dagaalkii in jihada kale loo bedelo waxaa la yidhi haddii oo waran uu lugta kaaga dhaco midna uu dabada kaaga dhaco kolka hore kan lugta intaad aaday waa inaad fadhiisto markan dabada iska bixinaysaa marka meeshii fadhigii dowladdu say u fadhido waxay u baahatay nimankan maamul goboleedyada in laga dhigo niman dowladdu waa inay monopoly power leedahay sida uu wadaynu sheegay cabdiraxmaan dujaana si taas loo helo madaxweynaha amarku maanta ka bixiyo uu howlgalka noocaas la qaado kama fulahayo maamul goboleedyada dhammaantood maxaana sabab waa powerka maamul goboleedyada ay leeyihiin taas marka soo lasma dhihi karo sidoo kale mooshinna ka bilowday gudaha xukuumadda 6 bilo ugu horreysay waan ogeyn soo lasma dhihi karo marka dagaalka hadda in uu meeshan ku socdo maamul goboleedyada oo siyaasadda dhexe la fadhiisiyo si dowladda soo socota ay fursad ugu hesho amarkeeda inuu ka shaqeeyo dhammaan maamulada iyo gobol kasta si oo shaqeeyo dowladdaani halkaan ay islaaxinaysaa su-aasha labaad bal is dhihi karaa marka dagaalkaas wuu saxan yahay su-aasha labaad waxaa waaye jubbaland waan ogeyn wax ka dhacay doorasha ka dhacday madaxweyne axmed islaam doorashadii uu qabtay kama dhicin maamul labadii saddex baarlamaankii saddexdii gudoomiyihii iyo ku-xigeenadiisi iyo madaxweynihiisi siyaasadda casriga oo Soomaaliya kama dhicin inay soo laabtaan waxaan ognahay xildhibaanada inay kurtigood ay u badan yihiin shaqaalihii wasaaradaha iyo ciidankii sida la xaqiijiyay oo warcad lagu hayo madaxdii hore haddii ay wax baadil taageeraan oo bulshada u kala eexanayaan oo bulshada la dulmiyay ay dulmiga u sacbutumayaan ay taageerayaan ma waxaa leedihiin hal laga leexdo oo hawsha ha socotee yaana la celin soo sharcigu cid kasta ma sareeyo dowladdu soo wadanka iyada ma maamusho oo amarka ma bixin karto oo wax ciddii amarkeeda ka hor imaado ama sharcigii bulshada ay degsatay dibinayso soo awood uma laha inay joojiso si xushmad la ayadoo ku xadgudbeen waa mahadsantahay waa laba su'aal hal qof oo saddexaad noogu dara kadib waxaan jawaabaan siin doonaa waa idiin soo laaban doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh oo inoo suurtageliyay macadkan Samadoon inuu barnaamijkan aad ku qurux badan oo noo qabto inta kadib waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta hortayda fadhido xeel horna soo qabtay magacaygu waa Cabdixakiin Xuseen Maxamed baada saxaafadda wariyaha daadihinaya barnaamijkan dhammaan asxaabtayda kale ee la midka ah halkan fadhiyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib kuma dheeraanayo waxaan rabaa laba su'aal inaan weydiiyo Xuseen Carab iyo saaxiibkiis kale geeskan ka jiro Xuseen macamhay waxaan rabaa inaan asaga waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo wadankan xukuumad baa ka jirto horta erey waxaad ka horumarsatay Carab aan ula jeedaa dhalinyaradan inaan wax u sheegaan rabaa waxaan soo xasuustay erey uu yiri Sheekh Cabdixayi oo inta badan masaajid ka qudbeeyo oo yiri markuu wiilka reemiga walaakis ka hurdada ka kicinaa saqda habeenimo wuxuu yiri niyo waa soo jeeda indha fara ay gelin marka dhalinyarada Soomaaliya hadaan nahay 80% horta waa soo wada joodnaa cid wax noo sheegi kartana ma lahan in qalad kartana ma lahan nidaamka dawliga iyo sidii wax ku socdaan horta wala ognahay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa tiri xaaladda amni marka ka hadlaysay waxaan aaminsanahay in dawladda amniga ay ku fashilmatay xamarna la soo wala galay maadaama aragtidaas adiga aaminsan tahay haddana aad tahay mas'uul ka tirsan golaha baarlamaanka xukuumaddaana aad ku jirtid dawladdaana aad ku jirtid saxantahay dawladdaana qolada baarlamaanka aad ku jirtid sidee marka waan ognahay xukuumad kasta oo jirto inay wax qalad samayso waxana ay saxdo waan ognahay hal eray oo xukuumaddan had jirta ama baarlamaankeeda ay saxdeen oo maana sheegin waxaad noo sheegtay in xamar ay la wareegeen gooxii ka soo horjeeday dawladda la wareegay aan noo sheegtay seen aragtidaas u qaadanaynaa adoo baarlamaan ku jira inay sax tahay seen u aaminayna anaga waa su'aasha kale waxay tahay saaxiibkiisa aan weydiinayo wuxuu weydiiyay wariyaha su'aasha weydiiyo ahayd seed u aragtaa nidaamka cadaaladda ka soo kaada jiro wuxuu yiri dawladda gobolo badan oo ka talin ayaa jirto waxaana ka taliya shabaab waxayna ku haystaan markii loo arko cadaalad iyo nidaam iyo maamul ku haystaan
su-aasha kale oo la weydiiyey wuxuu yidhi markii kusii adkeeyey waxaa la yidhi maxaad ka wadaa cadaalada nidaamkaas ma aragtay miyayna xoog hayn mise shacabkaa ku qanacsan wuxuu ku adkeeyey nidaamka shuuciga dictatornimo ee dunida ka jiro ayuu ku adkeeyey wuxuu yidhi dunida way ka jirtaa dictatornimaas way ka jirtaa buu yidhi markaan waxaas bardhigaysaa nidaamka shuuciga aan ognahay wadamada reer galbeedka ka jiro oo wadankooda ay ku maamulaan iyo nidaamka al-shabaab u degsan oo shacabka tuulooyin kastaan ay ku maamulaan miyaas bardhigaysaa aad aa maasanta laba su'aal waa fahmay waxaa ku hormaraya xuseen carabdiise xildhibaan soo dhawow ku jawaab بسم الله وحيرا اوكي انكا بابو dhammaantiin waa mahadsantihiin mas-uuliyiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha magacaygu waa badrudiin maxamed nuur magacaygu waa badrudiin maxamed nuur waxaan rabay bas inaan maaragtay commenty iyo hal su'aalo aan qabo inaan raacsado exactly waan soo koobi doonaa insha allah waddankeena wuxuu soo maray 3 system intii aniga garaadkayga uu maaragtay aan si fiican wax u kala fahmay systemkii madaxweynaheennii hore sheekh shariif sheekh axmed oo ahaa inay waddanku dagaal ka socday oo dawladdu ay madaxtooyada bas ku koobnayd oo dagaal caadi ah lagu jiray oo macnaha dawladdu system ay isku dhistay iyo system cadaalad lagu dhisay waxaasba uma jirinba oo xildhibaanka iyo wasiirka iyo askariga dhammaantood isku wada mid ahaayeen oo dagaal lagu jiray system noocaas oo ahay system kale waxa ku xigay systemkii dawladdii xasan sheekh ayadana waxaa jirtay marka wax badan isku dayo badan bay samaysay inay amniga wax ka qabato waxaa ka mid ah waxyaalihii aad ay bulshada u dareemeen in magaalada muqdisho isbaarooyinka tirada badnaa yaalay la qaaday laakiin weli way sii socotay amni darradii oo ma istaagin dabcan markii nimankii waddanka laga saaray waxaa dhacday in taatikadii ay wax ku weerari jireen ay isbedeshay ama ay qaab kale ay u dhigeen waxaa ku xigay dawladdan hadda jirta oo dawladdii madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo dabcan dawlad kasta markay timaado siyaasad iyo policy bay leedahay marka xogaa waxaa jirta marka miqyaas ah aad idinka hadda saarteen dawladda maraykanka miqyaaska saaraysaan iyo dawladdeena miqyaaska saaraysaan baa isku mid ka dhigteen waayo dawladda markii ay systemkii meeshii kasii wadayso waa markay u timaado system dhisan oo habaysan oo waxbana una ka qaldanayn marka dawladdeenan ma jirin maaragtay system noocaas oo dhisan waxaan xasuustaa aniga ninaan qaraabanahay oo askari ah oo hotel waardiye ka ah inuu booliiska ka qornaay militariga ka qornaay nabad sugidda ka qornaay dhammaan mushaar qaadanay mudanahaas Hussein wuxuu sheegay in ay diiwaan gashanayd waxa la yiraahdo ciidamadu ay wada diiwaan gashnaayeen kuwan kalena ay zero ka bilaabeen marka waxaan islahay dawladdan baa bilowday in ciidan si biometriga loo diiwaan geliyo horaan waxba ma jirin marka waxaan islahay aan ilaalino ama maaragtay aan dhamaanteen aan wanaag isku taageerno siyaasaddu dhamaanteen wayna wada qosaa hal su'aashi aan rabay bas wali ma soo gaarin su'aashiis waxay tahay sidaan wada ognahay adigana amni waa u baahan tahay anigana amni waa u baahanahay waddankana dhan amni u baahan yahay magaaladan muqdisho waa la kala xirxiray sax laakiin isku socodku waa fiican yahay ani asaan aaminsanahay waayo meeshuu dhiigaaga ku badbaadayo walow wadaha la xirha ahaatee inaan lugayo waxba macnaa ma keenayso muhiimaddu waxa waaye qofka dhimanaya ayaa qiimana leh midada kale markii aan ka imaado kaxda waxaan baabuur uga soo degay x control isla x ka soo baabuur kale ka soo raacaya macnaha costiga ayaa expansion sameeyay wax dhib oo kale ma imanin midda kale su'aasheedii baan hadda u imaanaa su'aasheedu waxay tahay waxa in ka rabaa mudanayaasha maadaama dad sharfan oo ummadii caan ah oo ummadii wax ka maqlaysa aad tihiin oo meel aad joogtaan ay bulshada Soomaaliyeed oo dhan hal mar inaad u aan karto waxa la caanulay macnaha isma jecla caanulay isma jecla maadaama dadka siyaasadda hadiinan u sheegaynin sidaas oo amniga muqdisho ku jira hadiina dhigi karin annagoo shacabkeena noo sheegi kartaan sida amniga muqdisho loo sugi karo san anagu aan maaragtay aan noqon xiriiriye labaad waa maasinta salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aan gudagal mikrofoonka aad qabsanay waa badana way isleeyihiin su'aaluhu waa xogaa iska agdhow su'aaluhu badana انت اتحسست وحي كلا gudbinay sidee baa looga gudbi karaa su'aashaadu yani systemka imika jira ma garanaysaa systemkii aad moodo federaalka yani xogaa sidii loo design gareeyay sidii u dhaqmaysa imika xukuumadda jirta inayna isqabanaynin
runtii inaan fahmno weeye xukuumadda shaqadeedu wax kalaba ma ahaba waa aabbaha moogtahay dowladda federaalka marka waxaa la rabaa isku haynta maamul goboleedyada shaqo kalaba ma laha si markaa loo socodsiiyo fikir midaysan ama ha noqoto dhammaystir dastuur ama ha noqoto ma garanaysaa ciidan qaran ama wax kasta oo la dhammaynayo waa in si yacni maaragtay isku dheelitiran oo siyaasadda la isku waafaqsay siyaasadda loo dhan yahay waxa la yidhahdo siyaasadda loo dhan yahay wayna dhacdaa marka mushkiladda ugu weynna waxa weeye saad ogtihiin somaliland waa maqan tahay soo maha puntland maanta way ka maqnay shirkiiba ka dhacay lagu falanqeynayay arrimaha soomaaliya jubbaland waa ka maqan tahay galmudug madaxweyne ku meelgaarad iimi marka waxa weeye gobolkii banaadirna weli maqaamkiisi waa la isku haystaa marka waa hirshabelle loo kariya marka dowladda shaqadeedu maxay tahay iyo koonfur galbeed hal noqdo oo weli waad ogtihiin sidii ay u dhacday doorashadeedu marka waxa weeye waxaa laga rabaa dowladda xukuumaddu inaanay ku mashquulin wax kalaba isku haynta maamul goboleedyadaas maadaama federaal la qaatay oo aanay u fikirin si ay tahay yani central government awoodaha oo dhan inay iyadu leedahay dowladda dhexe kaas waxay ahayd markii kale taliska ma garanaysa dowladdii tawradii kacaanka laakiin maanta system kalaa la qaatay marka ninka imanaya xukumkaaku doonaya inuu ama madaxweyne ka noqdo ama ra'iisul wasaare ka noqdo ama xildhibaan ka noqdo ama wasiir ka noqdo haddaanu systemka aaminsanayn waa problem waa inuu bedelaa oo uu dastuurka bedelaa broseska ha bilaabo laakiin waan ku shaqaynayaa maskaxda kalena way ugu jiraysaa waa mushkilad meesha baashu ka qaban lahayd horta waa halkaa in la fahmo waayo maxay ahayd arrinta axmed aadan xasan uu soo bandhigay ah xukuumaddu waxay gaartay in baarlamaanka maxay yani la baabi'iyo ama caqabad waxaa ku ahaa baarlamaanka uu yiri iyo maamul goboleedyada marka dagaalku waxay ka bilaabday inay marka hore ayaga iska xaliso horta mushkiladdu waxa weeye saan idiin sheegay xukuumaddu inay ku mashquulsan maaha inay caburiso baarlamaanka waana fahamtaa aduu aabbaha ma tirtiri kartaa iyo hooyadaa uu keenay yaa keenay madaxweynaha markiis hore baarlamaankaa keenay awoodda sare ee keenaysa maaragtay waa baarlamaanka weeye hadda baarlamaankii ku keenay aad leedahay waa baarlamaan waxba ka jirin marka adigana waxba kaama jiraan ma caburin kartid teeda kale ogow muhiimadda markaad qurbaha ka timaado waxa weeye dalkaaga kusoo noqonaysa waxa wanaagga aad soo aragtay inaad u keentay way dadka nina maraykan buu ka yimid nina norway buu ka yimid waa labadii dal xagga maamulka ugu wanaagsanaa way adduunka laakiin imika in lagu mashquulo caburin baarlamaan iyo caburin mucaarad iyo waa system la yaab la weeye waa systemkii aan ka soo gudubnay ee soomaaliya burburisay weeye marka in la yidhahdo maaragtay waxay arkeen inay xukuumaddu baarlamaanka shaqadiisa ayaaba mooshin ah kelmadda mooshin khalad ba ka fahamteen wax kasta oo laga hadlayo haddii la leeyahay maanta waxaan ka keenaynaa hadal arrimaha beeraha waa mooshin marka annagu teeda kale fiiri waxaan nahay shadow government wax la yidhaahdo hadday wanaagsan yihiin baabuurka si fiican laamiga u saaran yahay socdaan lama hadlayno haddaan rabna laakiin steering iyagoo haya ay ku seexdeen oo ka dhacayo laamiga waanaan ku qaylinaa say u kacaan marka runtii inaad fahamtaan baa laydinka rabaa weliba dhallinyaradiina imika laga dhaadhiciyo maaragtay awood ay leedahay central governmentku maxay baydhabo u amri weyday oo u amri weyday garowe ma amri karto leanna systemka dawliga ee maanta aan qaadanay ayaan ku dhisnay sidaa maaragtay waa system wadar maaragtay ogolaad ah oo lagu heshiiyey in la tashado federaalka ah sidaas ku dhisan inaad haddaan la rabin waa in dastuurka la bedelaa ta ugu dambaysa waxaan malinaya odayaashaan u daynayaa dhallinyaradu yani hurdada way ka kacday way og tahay wax kasta yaas laakiin ya mida doorashada jubbaland yani doorashada jubbaland waa yahay waxa weeye runtii ogow dastuurka qodobka 120 muxuu leeyahay doorashada ayaa ku shaqalay maamulada dowlad goboleedka u madax bannaan maya waxaan ku sheegayaa dastuurka macnihiisu waa maxay waana ku dhaqantaa ama waa inaad bedeshaa waxaan ku sheegaya yani sharci in lagu shaqeeya muhiima waxa aad jeceshahay waxa laga yaabaa in aanad jeclayn inuu soo baxo ma waxaad leedahay weligaa la dhaqmi maayo waxaa la rabaa maadaama uu sharcigu saa sheegayo waa inaad sidii puntland ay u maamulatay doorashadeeda jubbalandna xaq bay leedahay inuu maamulato marka runtii waxa weeye innaka dastuurka ayaa u fasaxaya jubbaland inay iyadu maamulato oo guddi magacaabato oo ciddii kasoo baxaysa kasoo baxdo dabeedna dowladda dhexe waxaa laga doonaya cid kasta oo kasoo baxda inay la dhaqmi karto arrin yar xagga ciidamada ah sorry igaraal noqda sharcigii howlgabka iyo ma garanaysaa retirementka iyo xaqsiinta ciidamada ee kala saaraysa darajooyinka iyo dhallinyaradana soo gelinaysa ciidamada waan baasinay annagu yaa hortaagan imka aqal sar hor yaallaa waxaa hortaagan imaka taliyayaasha ciidamada ee 80 iyo 70 kor u dhaafay ayaa hortaagan inay socoto dhallinyaradiina waxaa la rabaa marka waxyaabaha la rabaa inaad ka dhidhisaan waxa weeye inay shuruucdaas oo kale la baasiyo
taliyii hore ciidanka militariga taliyimka asluubta gruubkaas ayaa barashar saaray iyagoo danahooda shakhsiga eegaya marka waxa weeye runtii waxyaabaha idin muhiim waxa la soconaysaa sharciyada baarlamaanku baasinayo ee la rabaa inaad la shaqaystaan baarlamaanka si u hirgalaan وماسدا حسين waxaa jiray daawada hadlay wuxuu yiri dawladdu wax san lagama sheegin maanta oo dhan wixii laga sheegay waxa dhaliil iyo inay wax xunsaynayso iyo wixii wanaagsanaa dawladda qabatay daawadalka joogan maxaa waa ma santahay waxaan u maleynayaa ugu baxaan hadan u maleynayaa waxa ka qaldan hadii wax wanaagsan dhacaan ama wixii adiga lagu dirsaday in laga hadlo uma baahna waxa khaldan ayaa dadku isaga soo noqdaan sharikad hadii ay hawsheedii ay faa'iido keenayso shir la isugu ma yeero lama yiraahdo faa'iidada hal iska wareysto faa'iidada waa la qaybsadaa hore loo dhaqaqa laakiin hadii qasaaro timaado waa la iska wareystaa laakiin yani hadaan abaaro oo hadda uma fadhino anaga hawlaha amniga kaliya rabnay inaan ka hadalno laakiin dawladda waxa ay qabatay wixii aan ahayn inay dhalinyaradan oo Soomaalidu masaakiinta ah oo aanan wax faham dhameystiran dawladnimada ka haysan in ay khiyaamaan oo in sarcaad ku wareeriyaan aanan ahayn oo ay qabteen ilaa hadda lama hayo hal midaan ku darayaa waxa tusaale ka ah shir ay laba maalmood ka hor magaalada lagu qabtay dadkii ay u yeerteen oo ajnabiga ahaa oo ka marxaati kacayay warka ajnabi ka soo baxay dhamaantiis waxay ahayd dhaliilo in ay ka gaabiyeen hawlihii loo idmaday hawlo waxa jira dastuurku idmaday iyo hawlo guud oo faham siyaasadeed oo la galay oo ugu horeeyo heshiiskii amniga qaranka oo ay yani meel hadda lagu sheego xataa afka lagama sheego iska dhaafiino maartay jire xataa afka lagama sheego marka يعني دولة أنا وحنا مسناهي يعني معنى له وحيابد كوسمتيك هذا أنا هذا حنوسن أنا حنوسن هذا نوجه مارتي بول برامر صدق أو نسكور حيو تما سوشيال لايستو معناه ما يعني جركي ما حنون كبحي مايا وحان سمي واحد كوسمتيك لي هذا وحيابها كوسمتيك مركز لقى صور واحد نبأ أو أيضا أمامان ديت كذا ها أما وحبيه اللي جه الشيء أو قبضتي مجرته وما سنتها وقت كان هايو سؤال شو قلت بس حكيت شوي عبد بحث جدي بانو ملاك محمد نور سيدة أمني قال الله حسلين كراه تأثير ملاك يعني قدام بيسو كنت أنا مركز رفيق كيروا كديتي أمنيو wixii banaadir ku salaysan de police iyo intelligence iyo xuraan iyo dawladda hoose ciidankeeda ku filan laakiin anigu warshad baa furan baan leeyahay warshada gobolada iyo degmooyinka ka furan hadii la soo xiro oo halkaas laga dagaalamo waxaan aaminsanahay in xasilooni ay helayso banaadir ay soo u baahnaaneen waxa weey amnigeeda in khalkhal galo marka inahaas aan ku soo koobayaa waa maasantahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii madasha wada hadalka dadweynaha ee Samadoon waxa ka qayb galay xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya sidoo kale waxa ka qayb galay Xuseen Macalin Maxamuud la taliyay hore amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Tujaana madaxii nabad sugidda ee Puntland walaha wasiirada Soomaaliya kuwa Puntland qayb ka ah tan iyo inta barnaamijka la mid ku kulmi doona bahdi Samadoon oo dagana badalay